السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن أو ونكسن ومركل يموقال كله. سوري هذا أصحابته كوحرن جنال كوس عبد الناصر جنال. تذكر عصبنا وحن لنا هاي سوري هذا كوس سوري هذا مال ذيك جعلي هاي موقال كنا مانتا وحن كقال دونا أرين الدنيا كيا بسي. نين كجري كوما أما كجري كوما سجال يطبن سنة كده من كوسو نقطة سيدي سعادة وعجائب. marka hore janaalka hadii aad ku cusub tahay fadlan subscribe inoo saar laagta inoo taaba commentigana fikirkaada inagula wadaag aad u mahadsantihiin ku soo dhawaada muuqaalkani waa muuqaal ka yaabiyo dunida inteeda badan kadib markii nin 19 sano oo koomo ku jiray oo ku soo noqday sidiisa caadiga ah Mr Jane waxa lagu magacaabi jiray ninkaani magaciisa Jane wuxuu u dhashay dalka Poland wuxuu ahaa injineer ka shaqeeya wadooyinka tareenka maalin maalmaha kamid ah isagoo ku jira shaqadiisa howlihiisa shaqo maalmeed ayaa madaxa waxa kaga dhacay buris ama dube si ay u taqaanidba kadibna maskaxdiisii ayaa waxay joojisay qaybta dareenka wuxuuna galay kooma waxa la dhigay isbitaal dhaqaatiirtu way la tacaashay in muddo ah si uu ugu soo noqdo sidiisa caadiga ah balse maysan noqon inuu noqdo si caadi ah in muddo ah waxa gibi ahaan balumay ama ka tagay dhamaan kontaroladii ama dhaqdhaqaaqi jirkiisa oo dhan waxa ka tagtay gibi ahaan ba xasuustii maskaxiyan in muddo ah markii uu isbitaalka ku jiray dhaqaatiirtana ay ku dadaaleen in badan waxay dhaqaatiirtii ay soo jeediyeen fikir ah in gibi ahaan ninkan laga takhalusiyo maadaama dadka caynka sidaan oo kale ay noqdaan in muddo ay koomo ku jiraan hore loo sii raaciyo noloshooda la dhaafiyo balse waxay arintaasi u soo bandhigeen xaaskiisa ama sawjidiisii waxayna kula taliyeen in ninkeeda ama sawjkeeda ay hore u dhaafinayaan nafta maadaama ay in muddo ah lagu rafaaday dadka haay dadka xanaanaya intaba dhaqaatiirtana aysan waxba ka qaban karin wixii xilligan ka dambeeya balse xaaskiisa fikirkaasi way ku khilaaftay oo way diiday oo waxay go'aansatay inta oo tiisa caadiga oo kaga dhimanayo in lagu tacaalo si walbana ay ugu dulqaadato waxay muujisay dulqaad aad u fara badan waxa ay isku dayday in si walba ay u daryeeshay waxanaanayso Mr Jane markastoo xanuunkaasi ku jiray xaaskiisa dib walba ay kala kulanto maysan u arkeenin wax dhibaato ah dhinacba marbay u gudin jirtay si xibnihiisa jirka oo san u dhamaanin markasta waxay isku dayaysay inay u samayso jimicsi dhaqdhaqaaq balse maysan u suurtagelaynin Mr Jane wuxuu lahaa 4 caruur ah afartii way weynaadeen wayna guursadeen afartoodaba intuu koomada ku jiray Mr Jane muddo 4 sano ah markuu si toos ah koomada ugu jiray waxa dib u soo noqotay xasuustiisa qayb kamid ah balse muusan hadli karin wuxuu wax kasta ka arkay indhaha xitaa muusood ama qosolka yar muusan sameyn karin laakiin wax kasta uu arkay indha ahaan Mr Jane markii ay ku soo noqotay noloshiisa sida caadiga ah oo ka soo baxay koomada muddo 19 sano kadib ah ayaa wargeyska loo yaqaano Guardian ee ka soo baxay wadanka Britain ayaa waxa uu ugu yimid waraysi wuxuuna ka qaaday waraysi dheer waraysigaas kadib wargeyskaas Guardian waxa uu sii daayay in Mr Jane oo koomada ku jiray 19 sano qolo kale oo maqashay wargeyskaasi ee 19 sano nin koomo ku jiray dib ku soo noqday ayaa waxa ay soo raadiyeen Mr Jane si waraysi ugu qaadaan Mr Jane markii uu ka aqbalay in waraysigaasi ay ka qaadaan qoladan labaad ee ka socoto wargeysiga TV-yo ayaa ugu warbixiyay markii ugu horeysay su'aashii ugu horeysay ay weydiiyeen ayaa waxay ku yiraahdeen waxaad koomada ku jirtay muddo 19 sano ah kadibna waa dib ayaad ugu soo noqotay intii jawaabtaasi oo san ka jawaabin waxa uu siiyay jawaab kale oo ka duwan mid ay sugayeen taasi oo ahayd aniga 19 sano kuma jirin wax kooma ah koomada waxaan ku jiray muddo 4 sano ah balse 15 sano ee kale wax kasto oo dalka ka dhacay ama waxa guryaha ka dhacay ama xaafadayda waxa ka dhacay waan la socday balse ma aanu awoodin inaan hadlo ama dhaqdhaqaaq sameeyo indhaha uun baa wax ka arkayay maskaxdana waan kala socday
Master Jane waxa kaloo sii sheegay in xitaa markii caruurtiisa guursanayeen oo arkayay hambalyadu oo san diri karin oo san hadli karin balse mid kasta markii uu guursanayay oo la socday. Master Jane caruurtiisa 4 ayay ahaayeen markii koomada ka soo noqdana waxa ay ahaayeen 13 qofood. waxa intaasi ku daray markasta uu cunug dhashto inuu Master Jane cunuga loo keenayay kadibna dhabta loo saarayay oo la socday. wargeyskani oo markii 19 sano ku sheegay inuu koomada ku jiray Master Jane wuu beeniyay. mar la xiriiray wargeyskaasi ee 19 sano ku sheegay inuu koomo ku jiro Master Jane ayaa waxa ay kaga jawaabeen su'aashii ahayd maxaad u qorteen 19 sano inuu koomo ku jiray. balse wargeyskaasi isla markii uu ka soo jawaabay wuxuu ugu soo jawaabay koomadu 2 nooc ay u baxdaa mid laga soo kabsado hal mar lagu jiro iyo mid mar la galo laguna noqdo haddana laga soo baxa laguna noqdo. Master Jane tiisu waxa ay ahayd koomada markii laga soo baxa lagu noqdo haddii uu 40 sano ka soo baxay markasta inta ka dambeysay wuxuu ku jiray marna kooma ka bixis sida bay ugu jawaabeen. runtii wargeyskaasi arintaasi wax ka qoray ninkan 19 sano koomada ku jiray ee dib ugu soo laabtay sida caadiga noloshiisii wax kasta ayaa isbedelay. intii uu koomada ku jiray xafiisyadii iyo howlihii oo garanayay way isbedeleen. agaasimayaashii iyo manageradii markaasi shaqaalihiisa haystay qaarna way geeriyoodeen qaarna waxay noqdeen howlgab. waxyaabo badan ayaa isbedelay xagga siyaasadda horumarka wax kaste. Master Jane waxa uu sheegay xilligii uu koomada galayay in dadka badan aysan sidin telefoonada laga qaato gacanka ay loo yaqaan mobilka balse markii uu koomada ka soo laabtay 19 sano oo qof kasta ku arkay gacanta ku sita mobil. wuxuu Master Jane ugu tilmaamay xilligaasi wixii ka horeeyay koomadiisa in dadka mobilada sitaan ay ahaayeen dad tiro kooban laguna tilmaamo dad maalqabeena ah ama dadka warshadaha iyo shirkadaha weyn u shaqeeya. balse waqti xaadirkani wax kasta way isbedeleen ayuu ku tilmaamay. mar waraysi laga sii qaaday ayuu wuxuu lagu tilmaamay inta noloshaada dhibaato la kulantay 19 sano balka waran wax noogu sheeg. jawaabtaasi intii dadka ay ka sugayeen waxa uu bixiyay jawaab kale oo ka gidisan wuxuuna ugu jawaabay dhibka aniga ma aha maray ee dhibka waxa maray waa gabadhayda ama xaaskayga taasoo igula tacaashay 19 sano. Master Jane wax kasta markii loogu sheekeeyay wuxuu isaga garanayay intuu koomada caadiga ku jiray ayuu dib ugu sheekeeyay arintaasi wuxuuna ku tilmaamay inuusan abaalkeeda gudi karin soojidiisa ama xaaskiisa uu ku tilmaamay inay tahay mid badbaadisay. Master Jane wuxuu u dhashay wadanka Poland waxaana laga wada bartay dhammaan dunida caalamka inteeda kale. waxa laga soo daayay telefishinada iyo wargeysyada iyo goobaha internetka loo yaqaan baraha bulshada. intaas ayaan ku soo afmeeraynaa qisadii ku saabsaneed Master Jane ee 19 sano ku jiray koomada dibna ugu soo laabtay noloshiisa si caadi ah. barnaamij caynkan oo kale inta dib ugu kulmi doono waxaan idinka tagayaa sida ay nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh.